kusoo dhawaad barnaamijkeena cali fantastic barnaamijkeena maanta wuxuu daaran yahay haajiro fantastic waa kuma haajiro علي أو هذا ما سنت برادة وكسلامة أنت أنا أقول جلين هاجر قف كتاعي وحاربة إن أنكويدي سؤال إما أكتهاي بيا زمزم إن سومال لذا مية أنا أقولها وحاربة إن أدبكو علي كنستيد بقول بسيدي نبي عيسى كهر إيجابتي وحا ما أركته جانك وهاي بقر كهاي بقر فاروح وقت كاس بقر فاروح waxaa ku soo haajiray oo imaaday nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisa waata taariikhda uu faaruux u damcay saara maadaama aad u qurux badneed waqtigaas uu damcay waata waxaan ku maqlaba aniga hadaan qaldaneen waa markii labaad oo been sheegay nabi ibraahim been xalaale hadii si kala u dhaho waa tii oo lahay waa walaashii asagoo xilgaas innamal mu'minuuna akhwa ka fiirinaayo oo walaaltinimada la isku dhaafay معناها ولالتني ما سيو أقبض بعديه في بقر فاروح أو قفك قبل مركو ده هو إلا دلتي ولا في جير أو ما عرفت لقى ما حوق جيرن لكن حاس كي جواي إيدي تهاي وحاسو دن ما عرفت ما لا في جيرن مركا ساس وكبد بعديه بين تاس حراشة وكبد بعديه وقت جاس بقر فاروح وحو دريمي عبسي الله أما أو دريمي ما عرفت أرجع يو حشود يو قالت كو قالي si uu ma aragtay ugu raali gareeyo saaro wuxuu u hibeeyay haajir gabar lahaa oo Soomaali ah sida Soomaalida ku cadeynay haajir horta Soomaalida waxaan ku cadeeyaa magacaas horta oo ereygaas haajiro waa gabar Soomaaliyeed magaceeda oo ilaa hadda aan isticmaalno anaga taariikhda marka hadda hataa meel kasta aad soo fiirisid haajir qof baxsata ma aan Soomaali ahayn taas horta waxay ku xaqiijiyay in gabar Soomaali ahayd بوينتي كلو حاجر أو عداي كارو إني جبر سومالي أو تاريخ أنا اللي سلفت أوجاي بقرتويد فاروح عيدا كي ما أعرف دتك دجالة ما بقرتويد كوجرت مركي قبصدين إيجابتي أي ما أعرف حكم كلا وريجين إن بدن جوجين ضد عن نقضي أو عيدا كمدة هاي أو النقضي دول كله يقين مركز بونت أو سيد اللي أوجي هذا أو ما أعرف دول كسومالية ده وقت جاس دت كاس إني دت مهم هاي إنه حكوسي أوجاني بقر كيا ku dhago yiri ma aragta maxaa u baxaysiin inta ilma ku haysatiin dhulala ku leeyihiin meeshan maxaa ugu tagaysiin waata ay dhaheen markaas anaga hadaan ciidan nahanay dhul cusub waa qabsan karnaa hadaan rag nahanana ilmo waa dhali karnaa saas waxay go'aansadeen inay dhulkooda u noqdaan taasna waxay cadeynayaan dhulka Puntland ay u noqohayeen inuu yahay dhul Soomaaliyeed iyaga ay Soomaaliyiin macna taas waaye marka hadaan soo noqono haajiro sidii haajir saara lagu guddoonsiiyay oo lagu siiyay lagu raaciyay maadaama saara ilmo u dhalin nabi ibraahim iyadana waxay sameysay waxay u hibeysay ibraahim marka ilaahay amarkiis meeshaas waxa ku dhashay gabadhi Soomaaliyeed haajir ahayd iyo nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa ka dhashay ismaaciil calayhi salaatu wasalaam nabi ismaaciil ka dhashay oo waxyaabo mucjiso aad ma aragtay dadka Soomaaliyeed inay ugu farxaan ay isugu weyneeyaan muhiim in gabar Soomaaliyeed ay dhashay nabi Ismaaciil 1900 BC meelahaas camal waxay ma aragtay waata nabi Ibraahim la faray inuu aasta Makka oo waqtigii ugu horeysay ay Makka ma aragtay soo caga dhigeen isla markiina ka sii haajiray oo lagu amray inuu ka tago nabi Ismaaciil iyo haajiro nabi Ismaaciil iyo haajiro markii meesha looga tagay waata meesha saxaro waaye wax la cuno male wax la caaw male waa markii markaas dhacday in nabi Ismaaciil caani markuu waayo wuxuu caabo oo baahi inta qabato ooyay hooyadii marka dareenka hooyanimo argagax ku dhacay carartay waata Safa iyo Marwa buurarkii ahay ay ku dhax oraday iyadoo biiraadihiisa wax ma aragtay ma aragtay ay cunugeeda ay kaga joojisay baahida waata toddoba markay mareysana uu ilaahay amarkiisa lugaha nabi Ismaaciil uu kusoo bixiyay biyi oo Zamzamka biyihii cabtay waata markaas ay caani u soo noqdeen markaas sidee ku dhici kartaa in oo Sacuudiga looga hadlayo af Soomaali maxaa nabad guursho luqad waxa nabad guuriyay oo Soomaalida xataa ka nabad guuriyay Sacuudiga hadda tusaale ama ka anaga qorbi imaanay ilmaheena ilmahooda ilmahay sii dhaleen waxa Soomaalina kuma hadli doonaan
uma kaa doona xataa Soomaali macnaha waxa keenayna waxay tahay bii'adii ku bedelayso ilmihii haddeertaan ay waxa noqdeen badad luqadii boqolkiiba kontonka ilmaha inta ku dhalnay ilmahan si dhalaan dabcan af Soomaali ma ku hadlay qofkan Soomaalinimadiisa waxa xaqiijiyo oo ma aragtay inuu qof Soomaaliya waxa xaqiijiyaa waa luqadii inuu qofka af Soomaali ku hadli karo saasa marka waxa keentay maxaa la ma aragtay in luqadii Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay ka guuraan macna meesha ka nabad guuraan macna waxa oo keenay hadda in luqada Carabiga in Carabiyiin ma aragtay meesha Carab leh ma aragtay ay joogto waxay tahay waqtiyada oo waqtigaas markii biyo soo burqameen meesha iska degtay dadkii hore sidii la ogyahay biyaha waxay ahayn wax aad u muhiimsan dadkana marka waxay sameey jireen inta badan waxay agdagi jireen meesha biyaha leh meesha biyaha lehna waxa lagu ogaa jiray inta badan inay shimbiro ma aragtay dul hayaabaan so qabiilka ugu horeeyay ee Carbeed aa lugta soo galiyay Makka waxayna ka yimideen Yemen qabiilka magacooda wuxuu ahaa Juhrum reer Juhrum aa soo galeen waxay ku soo galeen iyagoo waxa ku jira raadiska biyaha waxay soo daba kaceen shimbirihii sidii waxa ku imaadeen biyihii oo ma aragtay samsamka ahaa maadaama biyihii samsamka la joogo already oo waxa ay joogto ma aragtay hooyo Haajiro iyo ma aragtay wiilkeeda Ismaaciil alayhi salaatu salaam waxay noqotay inay weydiistaan dhahan biyahana rabnaa ma agday karnaa taasoo keentay hooyo Haajiro inay waxa tira hadaadan igu sheegahaynin biyahan waa agday kartiin sidii ay ku dageen meeshii Carabti oo ugu horeyso ma aragtay Makka lugta soo saarto markay ku dageen meesha Nabi Ismaaciil saasay luqadda soo Carabiga ay ku bareen markuu weynaadana waxay ku dareen gabar Juhrum ah meeshii marka waxa ka soo farcameen Carabti Aliyo waxa oo mucjisada leh oo ma aragtay Soomaali inta badan waxaan dhahnaa anaga Carabaan nahnay anaga saasaan ay dhahan laakiin waxa mucjisada laha waxay tahay anaga Carabti iyagan anaga naga soo farcameen Soomaalida Carabti la sheegayba Soomaalida ka soo farcameen gabadhan Soomaalida waxa soo markay gabadhan Soomaalida waxaan rabaa inaan isku ka xira ilaa nabi Maxamed alayhi salaatu salaam anaga barakada iyo ma aragtay iyo islaamnimada meeshaas aan ka heesana inta badan dadka inta badan waxay ku faanaan waxay tahay anaga waxaan ka soo jeednaa Carab inta badan sababtu waxa keenay waxay tahay dhanka nabiga alayhi salaatu salaam nabi Ismaaciil horta waa laayinka nabi Maxamed alayhi salaatu salaam meesha ka yimid waa ma aragtay qabiilada meesha ka yimid waa markii gabadhan Juhrumta lagu daray af Carabi meesha lagu baray ilma Ismaaciil waxay ka soo farcameen oo isugu xigsadeen maxaa la ma aragtay Cadnaaniyiin oo dhalay Cadnaaniyiintu wuxuu ku xijiyay mudariyiinta waxa ku xigtay Qurayshna waxa ku xigtay Binu Haashim ka marka waa markay wax ka imaahay nabi Maxamed alayhi salaatu salaam qabiilku ka yimid maxaa la ma aragtay alayhi salaam marka dadka Soomaali waxaan rabaa inay ku faanaan inay nabiyada ayaga ka imaadeen ee nabiyada ayaga dhaleen ee ayaga soo naasnuujiyeen meeshay ku faani lahayn anaga waxaan ka nimid Carabaan anaga waxa la rabaa inay dhahan Carabta anaga naga yimideen saasayna biyaha Zamzam ku yeesheen aan dabcan waa dareemi kartaa marka reer Juhrum balanti iyo wacadkii way ka baxeen maadaama meesha dhul Carbeed uu yahay hadeer Soomaalidii iyagoo dhaqankii iyo wax kasta aan diinta iska leenahay hadaan tagan in tunkana laga soo qabto ma aragtay laga soo tarxiilo oo wadankina laga soo bixiyo sheekada ku soo xasuusto sanadkan oo hadda dhamaan way bilowgii sanadkii hore 25 bilowgiisa ani yar walaalkii waxa tagnay Sacuudiga inaan soo cumreysano marka ala kulli xaal asaga hore u tagay 12 sano ka hor magac kale oo sheegtay faray ka qaadeen hadda markuu tagnay fariiga ka qaadeen magacii hore iyo magacana xoogaar isla hawaay sidaas la adligeeda adiga waxay dhaheen wadanka inaa soo gashid xaq uma liid oo ku celinaynaa aniga marka waxay diyaar xanuunsan waay inaan la noqdo waay markaas waxay ugu dhaheen dabcan marka la hadlayo waxa kula hadlay luqadda hadda waxa ku saxsuus erigaade English kula hadlay waxay dhaheen ma aniga Soomaali ma tidaa Carabi ma ku hadash macna Soomaalinimada waxay noqotay in Carabi ku hadash ما Soomaaliya data waa bana Carabi ku hadasha adigana hadda waxay dhawaysaa yani luqadoodaba luqadeena ka facweyneed كفاعوين طبعا معناها مركز dad noo imaaday ahayn haddana waa dareemi kartaa meesha markii lagaaga badan yahay waxa waaye biyo badan iyo dad ka badan waa ku qaadaan marka
hooyo haajiro iyo wiilkeeda ismaaciil oo yar waa dareemi kartaa markay u imaadaan qabiil iswato waxay imaanay marka inay ku dhex milmaan xataa hooyada hadday ku dhex milmin hooyada ilmahay sii dhaleen ku milmi karo nabi ismaaciil calayhi salaatu waaba yaraayba markaas macnaha asagana yariisu ahay luqada meesha ku bartay af carabigi waana dareemi kartaa dadka badankooda raace meesha ma aragta luqada dadka ugu badan aan raace gabar wuxuu aroosay reer juhrum ah taasna waxay sii dhashay in ma aragtay saas aan ku nabad guurna anaga marka luqadeena waxa waaye Afrikada dhan markaas xataa dadka u imaan jiray Soomaaliya inay la macaamilaan ma loo kala turjumi jirin luqada magaaladaas looga hadlo Soomaaliya ay ku hadli jireen macna dadka waqtigaas dadka ma aragtay biyadaas ma aragtay Afrikadaas istigaas Afrikaas ilaa waxa isla degay ilaa waxa isla tag Egypt isla tag way ku hadli jireen marka Soomaalida waxaan rabaa aniga in muhiim ma aha maanta inaan dhahno anaga biya zamzam anaga aska leh hana la siiyo muhiim ma aha waxa muhiimad ah waxay tahay inuu dareemo qofka awoodiisa iyo baawarkiisa iyo ahaanshihiisa karaamada saaran uusan dheyn aniga carabaan ma aragta ka soo jeedaa uu dhaho laakiin carabta anaga naga soo jeedaa macnaha marka waxa ay leedahay biyaha zamzamka Soomaaliya iskale Soomaalina waxay ku yeelatay reerkaas carbeed oo ugu horeeyay soo galay wacadkii ay la galeen hooyo haajiro oo gabar Soomaaliyeed ah waana la qariyaa leedahay marka biyaha micnaha dabcan waxa hadda nolol tarxiilaayo oo wadankiina ku milmano oo ma aragtay ilaan Soomaalida marka fiirisid adoo xataa diin loo dhigin cunugta yar iyo qofka weyn waxa dhan waxa ka muuqda diinta Islaamka qof Soomaaliyeed markay aragtid Islaamka arkay oo rasmi ah marka inagiyo dhaqankeen Soomaaliya oo saas Islaam u yahay islaamnimada wadaagno maxaa keenayo inaan nin Ethiopian oo Kristaanka u xiran yahay inaan la mid noqono oo labadeen intana la qabto noo soo tarxiil waxa keeni karo oo ugu badan dhigi karo waxa tahay